howlgalladan ay fulinayeen cutubyo ka tirsan ururka 15aad ee Kumaandooska Gorgor ayaa waxay ka fuliyeen duleedka degmada Balanballe ee waqooyiga gobolka Galgaduud. Howlgalka ayaa waxa uu ka xigay taliye xigeenka qaybta 12aad Cali Dheere iyo sidoo kale taliyaha ururka 15aad ee Kumaandooska Gorgor Dhame Maxamed Cabdi Daahir. Howlgalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmo ka hor deegaanka Xirshiliga lagu dilay ku dhawaad 5 qof oo loo dilay aanan qabiil. saraakiisha horkacaya ciidankan ayaa waxay kulamo la qaateen odayaasha dhaqanka degmada Balanballe ee waqooyiga gobolka Galgaduud waxayna ka wada hadleen arrimaha amniga deegaanka sidoo kale sidii gacan weyn looga geysan lahaa raggii ka dambeeyay dilkaasi aanada qabiil loogu geystay. sidoo kale deegaano ka tirsan ismaamulka Itoobiya ayay gaareen cutubyo ka tirsan ururka 15aad ee Kumaandooska Gorgor sida deegaanka Buulale, Jeed, Qoolax iyo sidoo kale Axmed Gurey oo ka tirsan ismaamulka Soomaalida. howlgalkan ayaa waxa uu ujeedkiisu yahay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dadka degan inta u dhaxaysa Balanballe iyo sidoo kale Guraceel oo inta badan ku soo noqday dil u dhaxeeya ana qabiil. Maxamed Tawani Ciilaw, wararka warbaahinta codka ciidamada qalabka sida Balanballe.